بسم الله الرحمن الرحيم suugaanta Soomaalida ayaan ku soo bandhigaa aaladda TikTok maadaama halka dhalinyartu ay aad ugu kulanto si aan u dhaqankeeni iyo afkeeni aan u lumin anigu ku ooyimaayo agtaada u xiisi maayo haddaan shalay ku ilduufay dunida dhinac baan ka raaci dookhaygaan soo ciyaari dirma lay dhigi xariira tolay waa beenahayga anigu ka maarmi maayo agtaada ka ooli maayo dhammaan xididada jirkayga adaa dhiiga u habeeya miyaanad qof weyn ahayn maxaad hortayga oohi qalbigayga qoryayni sidii sheekh Idris Raamaale tuf baad leedahay walaal magacaygu waa Idris Saciid Maxamed waxaan tiriyaa maasooyinka hoga tusaaleynta anigoo dhaqanka saara arrimaha qoyska iyo jacaylka والله مستقبلك waxyaabo badan baan rajeynaa inaan noqdo laakiin haatan waqti xaadirkan waxaan xoog saarayaa san bulshada ugu soo gudbin lahaa wacyigelin iyo waano iyadoo maqal iyo muuqaal ah kibirku gabariyay ma fiicna hadaad baylihisay reerka afar baa lay baneeyay aroortan sooba guursan iswaal baa deysan weydee adoo wata reerihiina waraaqdaadii u kaalay wallahi saakay jarmaaday ana weelkii xalaaya ileen liifii ma yaalo taydii waa sii gabaabsi majin baa reerka jooga ayaa wax ku cunayso xuuntan aabooyaa musawaryaada anuu ma cuntaan aqaana ilmadaniga da'aysa eega basashayga sii daraysa marwadidu dayay walaalo alla umay ahaata saacad aqalku kaa maarmi maayo anoon gardarrada lahaani anaa eedoo dhan qaaday anaa naca soo maraana adoonani ii naxayni awlaadaadii u kaalay jacaylow jacaylku meeyey ileen waa guur hortiiba dumar waa adduunyo joogta intuu jeebkaagu gooyo ayaan ku qabaa imaanba heshiiskeenaa ahaaye anoo isku kaa halleeyey fadhiga waan soo dhiguune ileen show waa sacuudi adna turki baad bidaysay sariir waa ila sariire mid walba waa lagu gam'aaye mug weynaataad ishaartay rogaan dhigay waa casaane masaar baa kuuba diiday tiifiigu subruu ahaaye miyaan dhaydkiisa eegay arooskiyo hoolalkiisa anigu maan diidanayne inaan kugu sugo baydkeenna heshiiskeenaa ahaaye kaalay ijaas maxaad ku keentay ileen dumar baada hayde adigu dembi maad lahaane anaa degdegee walaalo muddadan sheekada wadayne haddaan kaa qorano taayo dhibtaasii may haleesheen